gudoomiyaha gobolka Sool taliyaha qaybta Bilayska gobolka Sool iyo waliba duqa degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa si wada jir jiraad ugu qabteen magaalada Laascaanood hambalyo u diray ciida ee ku ciideen bulshada ku dhaqan gobolka Sool iyagoo sheegay in guud ahaanba gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood ba looga ciiday si mug iyo miisaan leh ugu horeeyna maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale ayaa isagu ka hadlay maalintan ciida oo iyadu ka duwan ciidii hore waxaan hadaladiisii ka mid sida tan aan joogno magaalada Laascaanood guud ahaan dadweynaha ku nool magaalada Laascaanood waxaan u dirayaa hambalyo waxaan u dirayaa horumar waxaan u dirayaa caafimaad qab iyo cimri dheer inay sanadkiisa ku gaaraan guul barwaaqo caafimaad iyo nabadgelyo baan rajeynayaa ciidii dadweynaha magaalada Laascaanood si wacan baa loo yiiday wax dhibaato ma jiraan goobihii lagu tukan jiray ee masalayaasha ahayd baa lagu tukaday waa alxamdulillah waa wax ilaahay loo mahadnaqo ciidii si fiican bay nagu dhamaatay oo nagu dhacday dhamaantiin waxaan rajeynayaa dadweynaha ku nool degmada Laascaanood bashbash iyo barwaaqo iyo baraare iyana sanadkiisa ku gaadhaan guul iyo nabadgelyo iyo horumar qodobka labaad waxaan doonayaa inaan halkan tacsiin tiiraanyale uga diro shilkii xalay ka dhacay magaalada Laascaanood ee ku geeriyoodeen labada qof dhamaantiin waa shil nagu wada dhacay guud ahaan dadweynaha ku nool magaalada Laascaanood waan uga tacsiideynaya waxaan si gaar ah uga tacsiideynaya labadii qoys ee marxuumintaas ka dhinteen inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun taliyaha qaybta Bilayska gobolka Sool gaashaan la dhexe Ismaan Daahir Faahiye ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo sheegay isagoo tacsi uga diray ehelkii iyo qaraabadii laba ruux xalayta ku geeriyooday magaalada Laascaanood wuxuuna sheegay inay gacan bir la ku hayaan cid kastoo ka dambeysay falkii xalayta dhacay maan shacabweynaha gobolka Sool waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay noogu wado waa maalin qaaliya oo qiimo badan ilaahay ciida farxadeeda faafaan dhammaan gaar ahaan ciidanka booliska gobolka Sool ayaan leeyahay ciid wanaagsan iyaga iyo xasaskoodaba yaan ka ambaleynayaa ambaliye kadib waxaan tacsiyadna tiiraanyale u dirayaa labadii qof ee ku geeriyooday xalay gabadhii iyo wiilkii xalay shilka ku dhintay ee geeridu foolxun ku dhacday ayaan tacsiyo u dirayaa ilaahay samiriyay baan inaga siiyaan dhammaan dadka gobolka Sool tacsi waan u diraynaa dhammaantood gaar ahaan labadii qoys ay ka baxeen ka tacsiyeynaa waxaan leenahay ilaahay wax khayr qaba haynuugu bedelo waa kuwa saacadoodii maalin khayr lay dhinteen ilaahay janna firdawsay ilaahay iyagana janna firdawsaa geeyo inagana ilaahay samiriyay baan inaga siiyo gabagabadina gudoomiyaha gobolka Sool mudane Cabdirashiid Xuseen Cabdulla Gargaar ayaa isagoo ka hadlaya maalinta ciida darteed wuxuu salaaniyo hambalyaba u diray bulshada gobolka Sool maalintan ciida ugu diray isagoo tacsi tiiraayalana u diray qoysaskii ay ka geeriyoodeen labadii marxuum Allah ha u naxariistay xalayta ku geeriyooday magaalada Laascaanood ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid mubaarak dhammaan dadweynaha gobolka Sool degmada Laascaanood khaasatan waan ugu hambalyeeynaya ciida maalinta khayrka Ilaahay ku jirno waa uga mahadcelinayaa ciidamada amniga iyo boolisku iyo maayirka iyo degmadu sida ay uga howlgaleen ciidii iyo nidaamkii wanaagsanaa iyo habkii goobii lagu tukanayay uga howlgaleen oo nidaamiyeen iyagana waa uga mahadcelinayaa dadweynaha waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay sanadkiisa hana u gaarsiiyo ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa nabadgelyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa nabadgelyo iyada horumarka iyo barwaaqada iyo noloshuba ku xidhan yihiin ilaahayna nabadgelyo weydiisanaa inaguna taasaynu ilkaha iyo afka iyo gacmaha iyo lagu habaysu u geerinaa aad iyo aad baan ugu hambalyeeyaa guud ahaan dalkooda gaar ahaan degmadan iyo gobolka Sool inta kadib waxa xalay ku geeriyooday magaalada laba dhalinyaro ah oo si accident ah arintaas u dhacday iyadana waanu ka howlgalnay ciidankii maamulkii gobolka iyo degmada odayaashii iyo duqeydii waxgaradkii labada dhinac si wacan baanu gacanta ugu qabanay meeshii ugu fiicneed baa la dhigay uga mahadcelinaya ciidamada booliska iyo milatarigaba ciidan qaran bay ahaayeen hawshaas si accident ay u dhacday oo kama ah labada dhalinyarada ay labadii qoysaad baan uga tacsiyeynaa waa maalin khayr leh ilaahay baa qoraynay maanteena la ciidin waqtigaas uu baa ilaahay baarti intaas ka qoray aad iyo aad baan uga tacsiyeynaa labadii qoys ee ka dhinteen waanu booqarnay haddana waa ku noqonaynaa waanu uga tacsiyeynaa odayaashii deegaanka waa aragnay iyagana samir iyo iimaan baan uga rajeynayaa ilaahay dhamaanteen samir iyo iimaan
ciid wanaagsan markale aad iyo aad baad mahadsantiin wuxuuna sheegay odayaasha waxgaradka iyo weliba bulshada gobolka Sool inay door muuqda ka qaateen mashaqadii xalayta ka dhacday gudaha magaalada Laascaanood taasoo uu sheegay gudoomiyuhu inay gacan bir leh ay wax kaga qabteen haddana ay ku hayaan wuxuu baaq u diray guud ahaanba bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood isagoo sheegay shirkii xalay dhacay inay aad uga xun yihiin hase ahaatee ay gacanta ku hayaan cid kastoo ka dambeysay waa Barkhad Cumar Axmed warbaahinta dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood.